ciyaar dhaqameedku waa astaanta lagu garto ummad, waana sidoo kale waxa lagu garto dhaqankeeda iyo sidoo kale taariikhda ay leedahay ummadaasi. Saddexdan ciyaar dhaqameed ee aad muuqaalkan maanta ku daawan doonto qaarkood hore umaanad arag. Haddii aad aragtayna mid ka mid ah ayaad aragtay. ciyaar dhaqameedkan ayaa waxay u baahan yihiin geesinimo, qaar kalena xirfad dheeraad ah. Dhaqameedka koowaad ayaa ah Wamo. Wamo waa ciyaar dhaqameed Soomaaliyeed oo caan ka ah deegaanada xeebaha, gaar ahaan gobollada koonfureed ee Soomaaliya. ciyaartan ayaa inta badan wada ciyaaraan rag iyo dhalinyaro, iyadoo lagu larayo heeso, sacab iyo dhaqdhaqaaq isku dheelitiran. Marka ciyaarta waamada la ciyaarayo, qaabkan cajiibka ah ayaa isu safaan ciyaartoydu ama dadka ciyaaraya ee odayaasha iyo dhalinyarada ah, iyagoo hal ku taagan ayaanay sameeyaan ciyaaro ama habdhaqan ciyaareed oo aad iyo aad u qurux badan, soo jiidashana leh. iyagoo hal ku istaagaya ayay hore soo soconayaan, iyagoo marba kooxiba waqtigeeda qaadanayso kana qayb qaadanayso ciyaar dhaqameedkaas ama bandhigaas ay sameynayaan. ciyaar dhaqameedka labaad ee cajiibka ah ayaa ciyaar dhaqameed ay ciyaaraan haweenku, weliba waqtiga aroosyada ama buraanburka lagu jiro. ciyaar dhaqameedkan ayaa iswajahayaan laba dumar ah, kuwaas oo sita mindiyo, iyagoo ku dhawaaqaya kelmadda carigeli carigeli carigeli. waxaana caan ka tahay ciyaar dhaqameedkani deegaanada Jamhuuriyadda Somaliland, waana ciyaar dhaqameed aad iyo aad u cajiib ah, sidoo kalena leh halis ama baqasho markay midiyaha isku taagayaan dumarku. ciyaar dhaqameedka saddexaad ee cajiibka ah ayaa ah istunka afgoy. ciyaar dhaqameedkan ayaa soo taxnaa ilaa qarniyo ama sanado aad iyo aad u fara badan, kuwaas oo lagu daawado marka la daawanayo odayaal waaweyn ama waqti aad iyo aad u fog. ciyaar dhaqameedkan oo laga ciyaarayay degmada ama magaalada Afgoy. ciyaar dhaqameedkan ayaa ah mid cajiib ah, kuwaas oo dadka ama tartamayaasha ka qayb qaadanaya ay soo qaadanayaan ula dhaadheer, iyagoo isku garaacaya. ciyaar dhaqameedkan ayaa leh xeerar iyo wax qabanaya qofku hadduu si khaldan u isticmaalo ulaha waqtiga lagu jiro ciyaar dhaqameedka. saddexdan ciyaar dhaqameed ayaa ah saddex ciyaar dhaqameed oo aad iyo aad u cajiib ah, kuwaasoo laga yaabo inaanad hore u arag. haddii aad aragtayna aad aragtay mid ka mid ah oo aanad dhammaantooda wada arag. ciyaar dhaqameedka ayaa ah astaan lagu garto ummad meel kastoo ay joogto, haddii ay tahay Soomaali iyo haddii tahay ummadaha kale ee daafaha adduunka ku nool. ciyaar dhaqameedku waa astaan laynagu garto haddaynu nahay Soomaalida.